بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال iyo marweyn dacalada adduunka meel walbo aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintiini ku bahawday Southern Media Corporation waxaan idin leenahay jimco wanaagsan meel walbo aad adduunyada ka joogtaan waxaan isdultaa ku sameyn doonaa safarka keligii talis Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Mareexaan uu ku tagay magaalada Addis Ababa ayaanu eegi doon haddii ilaahay uu ka raali noqdo waxaa laga yaabaa dadka qaarkii safarkaasi xaqiiqada inaysan ogeyn laakiin wax kale loo sheego si taasi looga badbaado waxaan diyaar u nahay inaan ummadda Soomaaliyeed ee ka kooban labada qowmiyadood ee mayga iyo maxaaga bal aan u sharaxno safarka keligii talis Mareexaan Farmaajo oo Addis Ababa ku aaday iyadoo doorasho lagu jiro muxuu salka ku hayaa muxuu daaran yahay idaacadaha waxaa la idinka sheegi doonaa in African Union ay ku shirayaan magaalada Addis Ababa Soomaaliyana maadaama ay qayb ka tahay African Union safarka in ma arkayse sidaasi uu ku qatamo ujeedadiisana ay sidaasi tahay waa run African Union ayaa ku kulmaaya Addis Ababa oo hadda xarun u ah sanad walbana way kulmaan si la mid ah sida United Nationska New York loogu kulmo kale September inta badan laakiin waxba ku hoos duugan meesha marka la isugu yimaado dawladaha iyo madaxweynayaasha qof walba dantiisii kan kale ayuu ka raadsadaa marka saa awgeed sawirkaasi la idin siinaayo African Union Summit marka laga yimaado safarkiisu wuxuu daaran yahay dhabdhe marka hadda 18 bishii Janaayo 2022 magaalada Addis Ababa Abiy Ahmed wuxuu ku qaabilay Musabixi oo u dhashay Isaaq Dir ayuu qaabilay oo isla markaana ah madaxweynaha Somaliland inahaasi qolada villa Soomaaliya oo heshiis ay ku jireen Abiy Ahmed waxaa lagu qanciyay oo la yiri ilaa heshiiskooda awal wuxuu ahaa in Soomaaliya dawladda federaalka kaliya ay u soo maraan oo aan gobolada la farafaraynin sidaas ay ahayd laakiin waxaa loo sheegay oo lagu yiri villa Soomaaliya Qatar annaga nagu soo socota oo Somaliland nooga muuqata ayaan ka hortagaynaa keligii talis Mareexaanow Farmaajo sidoo kale adiguna waa ku canaananayna yaa la canaanana Musabixi Somaliland macnaheedu Somaliland qol baan gashanaynaa dhagaan ka jiijiidayna waa ku canaananayna khatar soo socotana waa ka hortagayna oo annaga noo muuqata Ethiopia laakiin annaga live kan horaan idin kugu sheegnay waxa hadda macnaheedu Farmaajo u safray Ethiopia in Somaliland ay bad ka rabto isla markaana dhagaana ay ka jiijiidayso horaan idin kugu sheegnay villa Soomaaliyana license laga soo qaatay laakiin shaki ay yimaadeen labadii xaq daro ku heshiisa xaqay isku dagaalaan shaki weyn ayaa yimaaday Somaliland oo lala kulmay Abiy Ahmed oo Abiy Dhabi tagay Tigray oo lala heshiisiyay qalinka lagu soo duugay u fiirso Rooble oo isaguna Abiy Dhabi tagay Deni oo Imaaraadka dhaqaaleynaayo Imaaraadka awalba Abiy saaxiib laha iyo Abiy oo markuu ka soo noqday Abiy Dhabi kadib u gudbay Kenya adhaa baran waayay buugii lagu sii beydkiina ku oy bajeela la'aanta beydkiina ku oy ayaan dhaweyd dad baa waxay u malaynayeen hadal aan sharaxay
caadifad inaan u hadlaayo may ani caadifad uma hadlaayo mar walba macniga warka runtaan ka sheegaa xataa hadduu idhibaayo waa naga mamnuuc caadifadaydii wixii xaqa ku qotoma macnihii wejigaan dadka ka saaraa xaqdare laakiin maya ayaan dhaweyd life waxaan ku sharaxay arrinta safarka abi in shakiyo badan uu jiro in abi axmed reer galbeedka ingiriiska ugu horeeyo iyo European Union dhammaan inay u sheegeen warniyow qasnadaha waan kuu furaynaa shiid baa tahay annagu shaqaalaheenna waa tigree Addis Ababa xukunkana macnii kaalama wareegayaan laakiin heshiis wada gala Soomaaliyana bad waa ka qaadanaysaan tuug aan ahayn niyow abiyo Somaliland hal aqoonsado warka uu isku dhan yahay adigana mucaaradka ku biir Kenya iyo tiimkaasi ku biir adiga haddaba imaaraadku waa ku jirtaa nimankan villa Soomaaliya jooga keligii talis mareexaan iyo tiimkiisii kababuudka la dulmar sidee loola dulmarayaa maamul gobolka kaliya la macaamile ciyaarta meesha ka bilaabe baydhabo Addis Ababa toos u imaani garowe Addis Ababa toos u imaanaysaa qoorqoor galmudug Addis Ababa toos u imaanaysaa hirshabeelle Addis Ababa toos u imaanaysaa Somaliland waa la aqoonsan aqoonsiga inta ay gaaraysana Addis Ababa toos u imaanaysaa oos imaanaysaa maxaa dhib ku geliyo abiyo noolow ajandiin Ethiopia daatiin Soomaaliya inaa qabsataan soo ma ahayn biyana aad heshaan maxaa ku daba dhigay keligii taliskan mareexaan adiga wax ma soo iftiimeen warbixintaan sheegi jirnay warbixinta SMC ay ku siiso saacado maalmo toddobaadyo bilooyin iyo mustaqbalka fog sanooyin waay waxa aan kuu sheegnay toddobaad koor buu ahaa hadda wax ka mid a ma soo bidhaamayaan shakiyaad jira markaan ku dhahay wax ma soo bidhaamayaan mise ma soo bidhaamayaan way soo bidhaamayaan okay maxamed cabdillaahi farmaajo marka keligii taliyaha villa Soomaaliya ani ayaan dhaweeyaan kuu sheegay nimankan naxdinta ugu daran baa soo fuushay aan ku dhaada soo wajahday naxdinta ugu daran ayaa soo wajahday aan ku dhahay ilaa haddana way naxsan yihiin mawjadaha oondooyinkooda way qasan yihiin shucaac badanaa ku furan sidii hore maaha waxaan u malaynayaa sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur dulmiga lagu haysto ilan ilaahay dulmi rabbul caalamiinka na abuurtay baa wuxuu yidhi addoommadaydiiow dulmiga anaa iska xaarantinimeeyey xadiisil qudsiyu ku yidhi aniga ayaa iska xaarantinimeeyey dulmiga laakiin adinkaa isdulminina dulmiga muxuu ka samaysan yahay nin baa wuxuu leeyahay cabdi guuse been ilaahay hadalkiisu waa been uu leeyahy ninkaas ilaahay xadiisul qudsi inuu yidhi dulmiga anaa iska xarimay beenuu ku leeyahay bal adiga ninkaasi islaamnimada sheeganaya oo qabyaalad ku difaacaya ninka mareexaanka waran oo dulmiga geystay waayahay wuxuu yidhi adinkaa isdulminina haddii aad isdulmisaan natiijada aad ka helaysaan waxaa weeye dulmiga adduunyada laydinkaga goynaya qabrigana waa mugdi jidkii siraad oo mugdina uu ku dhammaan jahannama oo madow marka macnihii qofka madluumka ah hadduu xataa faasiq yahay rasuulka waxaanu ka dhagaysanay culimada loogu haaraan gala diinta islaamka ay noo sheegeen xitaa hadduu qofka faasiq yahay haddii uu dulman yahay ducadiisa waa la aqbilaya mukhtaar roobow 3 sano ayuu xabsi ku jiraa waraysigiisa waxaa ku jiray waa la idulmiyey laakiin biidni illaahi baari farmaajo ma soo noqon doonuu yidhi way u muuqataa maxaa yeelay dulmiga qofka loo geystay raalligarayn waa in la siiyaa waa in ma arkaysa macnihii waan kugu qaldanna la dhahaa ilaahi hadda waddadii ma hayo tii baa muuqanaysa marka isku soo wada duub muxuu dhihi rabaa marka wuxuu dhihi rabaa hadda niman yahow waxaan ku heshiinay abiyow in Somaliland ama gobol
midna aan ma arkayse toos loola macaamilin oo annaga inna loola macaamilee waa sidee abi wuxuu ku dhihi doonaa saaxiib dhegayso farmaajo annaga waa ku soo wargelinay meeshaasi niman annaga aan raadsanayno ayaa ku dhuuntay adigana waa ku canaananaynay saasaan ugu yeeranay markaasaa wuxuu dhihi doonaa farmaajo marka aad canaananayseen anna maxaad iigu yeeri weydeen maxaad anna iigu yeeri weydeen goobjoog si aan u ahaado hadda waa ku soo wargelinay laakiin meesha maxaa ku duugan abi inuu soo maray Kenya markuu Abu Dhabi ka yimaaday nimanka Tigreegana heshiis la galay Tigreeg marka maxay yihiin Tigreeg waa nimanka u qaybsan aadna u yaqaana qaybinta iyo kala googooynta Soomaalida oo Mareykanka iyo reer galbeedka shaqaalo u ahaa aad u faham marka haddii abi iyo Tigreeg ay heshiiyaan heshiiskooda waxaa ku jira saaxiibayaal dhagaysta adinka Etoobiyaan baa tihiin wax Soomaaliya la yiraahdo ma jirto marka ugu horeysa waxay la soo baxayaan shaxdii Tigreeg aabahood uu dhigay ninka la yiraahdo Malla Zanaawi shaxda uu qoray baa waxay ahayd Somaliland in ay gooni u go'do ama in ay iyada hoos timaado Addis Ababa toos sidaasuu qoray Malla Zanaawi uu la dhintay buuggaasi hadda Tigreeg way haystaan kaasay akhriyaan marka hadhow haddii Abiy Ahmed isbahaysigan villa Soomaaliya iyo Eritrea ka bax la yiraahdo sida u muuqatana hadda heshiiskii uu soo seexay Kenya uu soo maray imaaraad kadib hadhowdii marka Tigreeg waa in kaartadeedu uu ku shaqeeyaa Abiy uu ku qasbaya Tigreeg kaartadeedu marka maxay tahay Somaliland in ay go'do ama in Addis Ababa toos ay hoos timaado kow in maamul goboleedyada toos loola macaamilo Soomaaliya mid walba Addis Ababa toos ugu xidhbo maxaa marka villa Soomaaliya u yaala finito la musica waaya shakiga waxaa intaas sii dheer marka farmaajo iyo saaxiibadiisu waxay leeyihiin madaxweynaha Ethiopia waa haweeney magaceeda soo raadiya waa ceremonial president waa madaxweyne sharafeed ee madaxweyne awood leh ma ahan sida kan Turkiga iyo sida kan Soomaaliya way awoodda ra'iisul wasaaraha leh madaxweynaha Ethiopia haweeneyda dalkaasi ka macnaheedu ceremonial president ka ah waxay soo magacawday qunsul ama wakiil Ethiopia u fadhiya Somaliland goorme mar hore laakiin ayaamahan maxay samaysay islaantaasi ilaan wax iskama samaynayso ilaa iyo abi uu og yahay Soomaan ama dawladeedu ay ka warqabto maxay samaysay ambassador macnaheedu wakiilkii Ethiopia ee Hargeysa u joogay waxay ka dhigeen full ambassador haddaad wax soo baaraynin oo cuqdad ay ku haysaday ku taala laakiin annaga warkaan ku siinayna kana nacab iyo kana jacel intaba runtaan u sheegaynaa marka full ambassador ay ka dhigeen haweeneyda ayaa qalinka waliba tig ku siisay wakiilkii Ethiopia ee joogay Hargeysa Somaliland waxaa laga dhigay ambassador buuxa oo dal ee fadhiya Hargeysa farmaajo marka wuxuu yiri tagitaankiisa maanta waay hadda waa yahay maxaad wakiilkiini Hargeysa joogay Ethiopia aad ambassador buuxa uga dhigteen why okay haddii ambassador buuxa aad ka dhigteen kii idin joogay Hargeysa kii xamar joogay ma ka wadaysaan
kii xamar joogay ma ka kaxaynaysaan oo macnihii soomaaliya ilaan hal ambashadoora idinku filan mise kan xamar joogana oo ambashadoorkiini fulka ah nama joogaya kan hargeysana wakiil idiin ahaa fulka ah ka dhigteen isagana ma idiin joogaya macnihii dalka soomaaliya laba ambashadoor ma idiin joogaysa mise mid baad ka soo kaxaynaysaan oo kan hadda hargeysa aad ful ka dhigteen ma kii xamar baad adisabo keeni doontaan su-aashaasi ayuu weydiiyey laakiin jawaabta waxaa looga dhigay farmaajo maanta kan xamar noo joogana wuu noo joogayaa waa ambashadoorka soomaaliya kan hargeysa hadda aan fuulka ka dhignayna isagana wuu noo joogayaa labadoodaba way noo joogayaan soomaaliyay noo joogayaan lama dhiniya kanna hargeysuu noo joogi waa ambashadoor buuxa kanna xamar uu noo joogi hawsha sidaasay ku soconaysaa baa lagu yidhi dhabanahays iyo yaab keligii tali farmaajo hadda naaw aan idinla hadlaayo meesha waa la soo galay meel libaax soo galay ma joogayso wey safarka marka farmaajo African Union inuu soo macnihii arko oo macnihii dhafoorada uu ka soo shushumiyo uma uusan bixin soomaalidu ha ogaato wuxuu u baxay hurdo la-aan baa ku dhacday hurdo la-aanta ku dhacday waa maxay Siciid Cabdullaahi Deni iyo Maxamed Xuseen Rooble ayaa villa Soomaaliya loo soo wadaa waa hadday ku guuleystaan dhaqaalo badan baa la soo siiyey Deni uu wakiil ka yahay Ingiriiska daba jooga reer galbeedka intooda badanaa daba jooga European Union daba jooga United Nations ka daba jooga African Union baa daba joogta igaad baa badankeed daba joogta igaadana macnihii Ethiopia ka dhinayd xoogeeda Ethiopiana waa midaan abi la geeyey Abu Dhabi Tigray la fariisiyey Tigray iyo Abu Dhabina heshiiska qalinka ay ku duugeen ma ahan hadda kadib ay ku duugi doonaan weligiin been idinkoo ku hayaad dhamaanaysaan kuwa mareexaanow oo dawladii Xasan Sheikh iyo Cabdiqaasim iyo Sheekh Shariif hawiinimo u diiday farmaajahan daalimkaana taageerayo waxaa taageerteen waan ognaa annaga qabiil baa idinku jira Cabdirashiid Janan mu'adin waaye Sheekh Mukhtaar Rogow oo dawladda heshiis la galay shabaab 5 sano iyo 7 bilood la dagaalamayay raxweyn baan madaxweyne u noqonaa markuu yiri calankaad u isticmaasheen marka wadaniyadiini waan idin la fahamnay laakiin cidda idinka caqli yar ayaan is wareysanaynaa waa ka qabanaya hinday wax yar warkaan aan dhamaynayaa marka wariya dhamaan safarka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu daaran yahay Siciid Cabdullaahi Deni baa villada loo soo wadaa Rooble ayaa ra'iisul wasaare loo soo wadaa haddii Siciid Cabdullaahi Deni uu imaan waayo kaalinta labaad waxaa ku jira Xasan Cali Khayre oo Kenyaatiga ay wataan laakiin labadoodaba waxaa jira nin qarsoon ay wataan oo ilaa hadda ummadda Soomaaliyeed aan loo sheegin oo la rabo saacadaha ugu dambeeya ee doorashada in qofkaasi siyaasadda laga dhex arko waa nin aan la garanaynin oo cusub na way wataan waxay ciyaarayaan yaa game culus jar culus haddii kan uu soo bixi waayo kan kuwaan meelaha hadda ka qaylinaya hotel Jasiire iyo waxay hayaan male anaa kuu sheegayo kuwaas nothing kuwaasi sida kursiga ay u bursanayaan ka dhab ah muufay raadinayaan laakiin team baa dhisan oo inta badan aan loo jeedin oo sidii Farmaajo markii uu madaxweyne noqonayay teamkiisu u qarsanaa markii dambe ay u soo wada baxeen nabad iyo nolol oo kale team noocaasa u dhisan Kenya Imaaraadka European Union iyo Ingiriiska oo dhaqaalo waalan lagu bixiyay doorashadana waa dhaqaale doorasho shacab wax dooranaya ma ahan qofkii jeebkiisu badan yahay
ayaa kuraasta ugu badan qaadanaya mise waa isku diidannahay xildhibaan haddaad siisid 500,000 hadda qofka kaa soo horjeeda hadduu siiyo 5 milyan codkayuu ugu ridaaya adaan ku weydiiyey 4 milyan iyo 500,000 meesha ay dheer tahay ayuu xildhibaanka raacaya because lacag inuu sameeyo doonaya marka walaalayaal isbahaysiga ka soo horjeeda villa Soomaaliya annaga waxba idin sheegayna ama caytamaha ama caytamina ha waan runta la idin sheegin isbahaysiga keligii taliska mareexaan ee farmaajo ka soo horjeeda very powerful way hadda now hadda ma ku sheegaya ninka meeshaas yimaadana Mukhtaar Roobow inuu soo daayo shuruud baa lagu la galay haddaan ku sheegaya leanahu isbahaysigaasi farmaajo ka soo horjeeda waxa dabada ka riixaya ingiriiska oo power fiita leh ayaa gadaal ka jooga security council-ka isaga riixaya Mukhtaar Roobowna ingiriiska macnaheedu saaxiib uu leeyahay uu taageeray wuxuu arkay macnaheedu geeska Afrika nin noqday al-shabaab oo haddana markii dambe macnaheedu isu soo taagay si dimuqraadi ah oo ummad hogaamiyay la jecel yahay taageero intaas la eg leh adduunyada isagana ingiriisku wuxuu rabaa inuu sumcad kaga helo marka saa awgeed Saciid Cabdullaahi Dani waatan uu yiri isla markii villa Soomaaliya aan lugta soo dhigo oo jaanta aan soo dhigo qofka ugu horeeya aan la kulmaayo waa Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur qofka ugu horeeya ee aan la kulmaayo waa Mukhtaar Roobow mar rabitaankiisa may rabitaankiis kaliya maan isbahaysiga dhisan baa sida ah heshiiska nin walba oo la soo saaro oo macnaheedu kama wada kuwaan hotel Jasiira iyo meelahan jooga laakiin isbahaysiga dhisan ee ingiriiska uu daba joogo teamkan hadda la dhisay ee adag oo hadhowdi isu tanaasuli doona oo isugu shubi doona isu campaign gareyn doona qof allaaliya qofkii soo baxa shuruudda waxa ku jirta koow Mukhtaar Roobow in la soo daayo maxaa Mukhtaar Roobow laga rabaa marka maxaa laga doonaya Mukhtaar Roobow waxa laga rabaa in koonfurta Soomaaliya iyo Soomaaliya oo dhan ururka al-shabaab in uu isagu ka sifeeyo maadaama uu aqoon u leeyahay sida loola dagaalamo marka horta qodobkaas inay fahmaan laakiin keligii taliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 3 sano oo kaamila cugdad raxaweynimo daraadeed isagoo u qaba Sheekh Mukhtaar Roobow uu xiray waxa ugu badan uu sameeyay waxa weeye qadar hayga aado war qadar hayga aado war miya Mukhtaar Roobow loo tagay waxa lagu yiri Sheekh Mukhtaar oo qadar aad wuxuu yiri ani dalkaygaan joogaa haddii dibad la aadayo in dibad la aadaba hadday tahay Farmaajo adaa mudan dibadda ina aadid because adigu dibadda ka timaaday burburkan ma aadan joogin annaga laakiin dalkeenaan joognay dalkeena kama bixin marka qofka mudan hadiiba qof dalkiisi uu ka tagaayo oo laga tarxiilayo ay tahay adiga in laga tarxiilo oo dalka aad ka tagtid adaa mudan buu yiri because adiga ayaa garab dooro Mareykanka saf ugu jiray dibadda laakiin ani dalkaygaan joogay kaasaana ku dhimanaya hadii Ilaahay uu ka raali noqdo marka shayga ugu badan ee Farmaajo laga helayna waxa weeye Sheekh Mukhtaar Roobow qadar ha aado habaxo bas oo markuu baxayo ma Sacuudiga jooga qofka Sacuudi laga soo tarxiilayo arki jirnay marka isku soo wada duub horta haday xisaabta ka xumaato hadday ka samaataba xaalku waa sidaas qolaha villa Soomaaliya xisaabta hadday ka xumaanayso hadday ka samaanayso annaga sheegisaan leenna waaya Sheekh Mukhtaar Roobow ma soo daynaysid miya doorashadan aan dhamaanin ma soo daynayo yiri Farmaajo okay ma soo daynaysid miya aha okay goorma soo daynay haddii doorashada ay dhamaato oo aan soo bixi waayo waan daynaya oo haddii aad soo noqotidna ma ogi waxaa macneedu ay tahay ma soo daynayo waay haddaan soo noqdo waayahay hadda adiga yaa addoon ku ah yaa qabbaan ku ah qof bini aadana waa iska haysanaya for evic weligeed ma shaqaynaysaa marka isku soo wada duub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkiisi hurda la'aanta ku riday waa sidaas wuxuu u baxay isbahaysigii 3 geesoodka ahaa uu kula jiray Abi Ahmed
واتي دبي لوغا ييري ابي ظبي تكري ابي ظبي اي سو هشيين سومالي لاند با لغوينايا farmaajana saaxiibadiisii abi iyo waa laga gooyey Kenya ayay la safayiin hadda mar dhow waxaad arki doontaan haddii aan wax isbedelin waaye maamulka Allah wata qolihii la dhihi jiray nabad iyo nolol oo keligii taliska Mareexaan uu hogaaminayay iyagoo villa Soomaaliya ka cararaya waa la arki doonaa waa haddii Abi Ahmed oo hadda 50-50 ah ilaan iyagu waxay ku taagnaayeen Abi Ahmed marka runta aan u hadalno arrinta hadda qadara ku dhex jirta because Abi Ahmed wuxuu la saaxiib yahay markaysa Imaaraat qadarna waxay la saaxiib tahay kuwa villa Soomaaliyana waxay la saaxiib tahay Kenya iyo Abi Ahmed Kenya Imaaraatna ismar karaan arrimahan sidii la isu waafajin lahaa shaqadooda socota waa 50-50 Abi Ahmed hadduu ku soo jeesto uu yiraahdo Baydhabo alle Addis Ababa Hargeysa Addis Ababa alle Galmudug Addis Ababa alle Garowe Addis Ababa alle Kismaayo Addis Ababa alle haddii shaxdii Tigreega oo awalba gobolada maamuli jiray oo hadda ay heshiiyeen haddii shaxdaasi uu qaato sida reer galbeedka ay doonayaan ayna ula heshiisiyeen ay tahay waxa weeye Mareexaan oo villa Soomaaliya ka qaxayaan arkayna waa haddii qadar aanay arrintaasi dhab siinin marka farmaajo Abi Ahmed jilbiisu haysta wakiilkii joogay Somaliland ambassador buuxa laga dhigay laba ambassador ba Soomaaliya u joogta Ethiopia mid ma celinaysaan baa leeyahay ma yeelin labadu way noo joogayaan farmaajo way isku dhamaatay muujeeda Somaliland in la aqoonsan rabo muujeeda in Abi macni uu isgadinaayo isbahaysiga uu ka baxayo okay intaas waa fahmnay magaalada Baraawe ciidamo ayaa la keenay oo doorashada macni wajigii labaad lagu qabanayo ciidamada la soo qaaday ee magaalada Baraawe caasimadda Maryland laga soo dejiyay waa ciidamo gaar ah waa ciidamo la soo xulay waa raggii aarareeda ka tirsanaan jiray inta badan oo jilba culus rag kulul sirdoon ah military ber madow oo birjeexo Maryland iyo blaze isugu jira oo halkii askari dagaalami kara inuu la dagaalamo 100 maleeshiyad loogu talagalay ayaa la keenay Baraawe waxaana qorshuu yahay doorashada in lagu qabto wajiga labaad lugta ay furaan annaga marka hadal aan sheegnay baa jira wajiga labaad ee doorashada beledweyne iyo Baraawe ayaa lagu bilaabi doonaa ayaan ku dhahay way Baraawe maanta ciidamo ma ka soo degeen mise baan sheegaya oo ka yimaaday gobolka Bay jamhuuriyadda Maryland oo dhammaantood raxweyna waliba aarareeda raggii soo dagaalami jiray u badan oo la soo xulay ma la keenay mise beenan ka sheegaya haddii aan been ka sheegayo oo ciidamadaasi aan la keenin been baa sheegaysa soo qora haddii ciidamadaasi la keenayna warkaan ku sheegayo waa sax oo ahaa in Baraawe iyo beledweyne lagu furi doono goobta labaad taasoo la rabo in Deni iyo Axmed Madoobe oo hal goob doonayay in lagu dhabar jabiyo qoliyaha jooga hotel Jasiira marka isku soo wada duub Hinda ayaa soo qaban doona oo dhowr jeer soo wacday walaashaasi iyada ayaa hadli doonta kulay ra'yigeeda kulay wararka waan idin siinay Baraawana ma arkaysa xaalkeedu waa sida Hinda maxaa kugu jiro oo ku dari lahayd السلام عليكم واكو سلام مركو هذا سلام الله وحير عدكي واحد اكرتنا حوغا يرد في ضعيف ياي لكن حقيقة ما كان كامل هذا اوكي هرتا لو قبل هذا حوغا مركو وحيس ويدي وحا في عنن وكان كلا ويدي سما aniga baryaha waa ku fiirinay waa garatana waa arkay hadalada runtii waxa isra aadan maxaa ka noqday hadalladii ma qaldayn مختار روبو علي أبو مصور بعد ظلم وحكرا فرماجها أودا شيء مريحان معني مقلب با مايا فير السلام عليكم حال قدرة ولا الكيو
وعليكم السلام قفكي قلدم وكوبي كرا وحي الربا لوgu dara okay maya marka ugu horeysa waxa way muqtaar roobo waxray adiga wad ogtahay ilaahayna wuu ogyahay way fahamsana annagana wad noo sheegtay afkaaga daan naga yiri asaga uma xirno oo wuxuu u xiran yahay niman maylan adaa nagu yiri aadanow hadda isbedel leeyahay maya anigu mar walba waxaan dhihi jiray marka laga reebo hawiye iyo daarood muqtaar roobo wuxuu u xiran yahay dadkiisa mas'uuliyiintiisa dhahay laakiin hadda adaa saxay marka warka iyo farmaajo marka xagga la dhigaan dhahay dawladnimada calanka buluuga ah xasan cali khayre iyo farmaajo ku soo xiray dadkiisana way fududeeyeen ani saasaan dhahay laakiin marna ma dhihin farmaajo uma xidhnaya never maya waa tiri haddaad ku noqo wararka hataa meesha muuqaalkayga ken aniga qof is ogaanayo wuxuu dhahay waxaan dhahay mar walba waxaan dhihi jiray muqtaar roobow hawiye iyo daarood buu u xiran yahay marka aan ka soo degno dadkiisu u xiran yahay ayaan dhihi jiray okay muqtaar xagga ii dhig marka waa ogtahay ninka la dhahay daahira waysan oo xiran yahay isagana waad la socotaa samba cid ka hadlaysa male waa inuu xirnaa daahir aways iyo muqtaar roobow isku mid ma ahan hindaay runbaa hadii la sheegayo oo been macnaheedu fogaanayo walaalay nahay xasan daahir aways nin isi soo dhiibay ma ahan nin heshiis dawladda la galay ma ahan xasan daahir baraawe habeenkii macallin burhaan iyo afqaan lagu dilaayay baraawe muqtaar roobow oo hubaysan kaliya joogay muqtaarna in la dilaa la rabay waxaa soo badbaadiyey muqtaar roobow baraawe doon ka soo saaray wuxuu yidhi walaalow meeshaan waa la isdilaayaaye anigu dhulkaygaan joogaa waan isdifaacayaa orod gobolkaaga aad lagu dhaafi maaye doonta waxay kula soo degtay galguduud kadibna isagoo habow ah meesha lagu qabtay xasan daahir aways sidii xamar lagu keenay habar gidir baa ku xoontay iyagiina qoobaha laga tumay waatii in dhacday 4 bilood uu baaldi ku xaarayay sida airport xasan sheekh uu ciidan ugu dalbaday oo garaacay ilaa iyo maantana xasan daahir aways kama tanaazulin hadafka shabaab dawladana heshiis lama gelin life uu soo galaa uu taageersay madaxweynena isma taagin waan ka baxay ma dhihin shir jaraa'id ma qaban laakiin sheekh muqtaar roobow walaalay 5 sano iyo 7 bilood isagoo abal shabaab kula dagaalamayo oo wiilkiisi ku dhintay baa dawladda heshiis intaasi kula jirtay dawladda xasan sheekh ay ka soo bilaabatay heshiiska kadib farmaajo heshiis socdo u yimaaday wasiirkiisi gaashandhiga taliye ku xigeenka nisa oo hadda wasiir gaashandhiga jooga cabdiqaadir oo maylan u dhashay raggaasi ayaa loo wakiilay in sheekh muqtaar roobow ay keenaan heshiiskana xuduru ku soo galay diyaarad baa loo diray xamar ayaa laga soo dejiyey nin isi soo dhiibay ma ahayn nin ciidankiisa ku dhex jira shabaab la dagaalamayo oo dawladda dan u aragtuu ahaa xamar markuu yimaadayna dawladdii aniga waa heshiinuu yiri calanka buluuga waraaqii uu akhrinayo waa loo wada jeeday marka kadibna isagoo sanad iyo bar jooga baasaboor diblomaasiya qof dambiilaa lama siiyo baasaboor diblomaasiya uu qaatay oo macnaheedu jagooyin badan loo soo bandhigay uu yiri mayan waa nasan sacuudiga tagay turkiga tagay jabuuti tagay markaasi kadib dadkiisa waxay ku dhaheen muqtaar oo shabaabana haysta waxaana adaab af yaqaana walaalow madaxweynaha ka dhigaynayna shariif xasan baa waqtigiisa dhamaaday noo bedel waa dal dibada la wacay kadibna magaalada baydhabo sidii ku tagay dawladda oo og farmaajo og khayr oo og iyaga baabuur u raray iyaga buruufiye u raray diyaarad u raray baydhabo ka dajiyay waa loo wada jeeday wax la inkiri kara ma kadib markii taageerayaal badan uu yeeshay oo digil iyo mirifle in uu meel ka soo saarayo loo arkay markaasay ka soo daba direen abdicasiis lafta gareen calool kuus iyo rag fara badan oo xaflado ku qabsaday baydhabo oo ay taageereen muhiimadda waxay ahayd sheekh muqtaar roobow in uu tartamo oo aanay macnihii lacag kaliya kaga badiyaan laakiin sheekh muqtaar roobow macnihii raggii kale oo dhan way daayeen isaga kaliya ayay bartilmaameedsadeen marka sheekh muqtaar iyo xasan daahir walaalay isku mid maaha su'aalan ku weydiina aadanow marka
annaga waxaan ognahay hotel shamow inuu ka dambeeyay mukhtaar robow maxaa ku caddayn kartaa sheekh mukhtaar robow inuu hotel shamow isaga ka dambeeyay maxaa ku caddayn maysiin ma dhamaynin wax yar ii kaa maya laakiin hadda wax weyna eedaysay meesha saamaha caddayn baan rabaa maya sokorta aniga waxa la sheegay warka sidii u dhacay markay dhacayso waaye iyo laakiin adiga waxaa dhacday la sheegay in hormarin hinday waxay ugu dhacday maya adiga waxaa afkaaga ka soo baxay qalbigaaga mukhtaar robow waa ka dambeeyey way maxkamadii aan taagana hadda caddayn ma ii sii kartaa mukhtaar robow annaga waxaan maqalnay aan ku yiri waa ifaansama okay haddaad gadaal ka dhacday waxaan maqalnay haye maya xaqiiqda waaye annaga waxaan maqalnay sababtoo aniga aakhiro ma u beelaayay ma taagnayn ma arkaynin beenna ma ku sheegayo waa ifaansama aakiradayda ma u beelaayo waxaanan ogeyn aniga oona dhihi karin warka waa kuusii dayn karaa hadda marka hadda waxaa maqlay baad rabtaa inaad sheeg marka waxaa maqashay waqti ha igaga dhuminin hadal laakiin waxaad og tahay igala hadal aniga waxaan ogahay kala hadlay haye bas waa dhamaatay sheekadaas midda kaleeto raba inaan ku weydiiyo adiga waxaa leedahay somaliland ha go'do adiga inay go'do hadiye ma waya aniga waraan sheegaya waxaan dhahay sidaas ayaa la damacsan yahay waraan sheegaya aniga haye mideeda kale aadanow ilaahay maa ka cabsatid jooy hadda waxaa tiri nin ambassador saasaa jirto oo farmaajo dhiiggia ku karay haddee walaalo waayahay hadday waxa hadday sheegayaan hadii laftigaada na tus xaqiiq see waa mina suge haddaan isla joognaa somaliland hargeysa ethiopia wakiil uma joogin miya aniga ma oga allahi ka okay haddaadan ogeyn marka gadaal ugu noqo soo baar ethiopia waa raadinaa ethiopia xamar safiir buuxaa u jooga hargeysana waxaa u joogay wakiil hadda wakiilnimadii waxay ka dhigeen markii abidabi looga yeeray abi kenya uu soo maray wakiilnimadii madaxweynaha ethiopia naag waay naagtaa waxay ka dhigtay safiir buuxay ka dhigtay su-aalaha ka dhashay waxay dhaheen maxaa laba safiir usoo magacowdeen ma mid baad celinaysaan kan muqdisho mayaa lagu yiri sideedaba ethiopia markii tigree ay joogtay xamarna waxaa u joogay qunsul ama safiir baydhabo qunsul garowe qunsul hargeysa qunsul meel walba wakiilaa u joogay marka runta aan u hadalno laakiin waxaasi way soo xirmeen markuu abu yimaaday hargeysa keliya wakiil loo soo magacaabay mar dhoweyn haddana wakiilkiibaa waxaa laga dhigay safiir buuxa shakiga meeshaasuu ku yimaaday hadda marka adiga soo baar marka ugu horeysa aniga waa wax details leh soo baar ilaa adeeda waa ay weerarto waxay ugu dhahday aadan oo ilaahay maa ka cabsi laakiin somaliland wakiil ma joogay hadda ambassador ma u bedeleen ethoobiyaanka soo weydiin soo baar okay anaa soo baaray mid kalena waxaan rabaa hal mida ogow nimanka la dhahayo habargidir fiiriya aniga sacad shaqadayda maan sacad waxaa isaga jira kuwa oo maxaa la dhihi jiray caado qaatiyaan laakiin waxaan kuu hubaayaan kuri ragga la dhahayo nimanka saleebaan inaysan abadan aysan yeelaynin aan kuri ethoobiyan tigre waa ifaansama ani taas iga qorcaawo sax waay waa kaa qoraya ma ifaante sababtoo ah annagaa og siday noo gumaadeen siday noo galeen annagaa og aad iyo aad ma ifaante marka walaalo waxaan ku caawo wallahi baryahan dhan dhiigga igu karbeen ma ku sheegaa hindaay su-aalaan ku weydiinaya hayo mareexaan 14 cod 16 cod uu leeyahay marka runta loo hadlo soomaaliyana qabiil bay dawladda ku dhisan tahay calanka in la isku xishmeeyaa saxa waa waajib baydhabana waxaa ka soo baxaysa 77 xildhibaan dadku geeda kama samaysan dhiig bay leeyihiin bani aadam waay dawladdan waxbaa la isku darsaday war cabdirashiid janan oo mareexaanku way daayeen farmaajiyo oo dad laayay oo amnesty ay daba taagan tahay sheekh mukhtaar robow maxaa loogu dhegan yahay sheekh mukhtaar robow cali abu mansuur waan ku dheganahay macnii digil iyo miriflana codadkooda kulli waan rabaa ma isqaadanaysaa su-aalaan ku weydiinaya xaq miyaa dawladnimadaasi inay shaqayso xaq miyaa macnii dawladda in ay dulmi ku dhismato oo dulmigaas aan ammaano xaq miyaa soo fiicna in dulmiga laga baxo dadku isu laab xaadnaadaan oo ma arkaysa dawladnimada
iyadoo la aamini karo oo la wada leeyahay qofna aan laga lahayn qofna aan lagu dulminaynin inaan macnaheed sidaa dawlad ku dhisano oo dawladdeena macnaheed dalkeena aan u tashano sooma fiicna marka sideeda shaqayn kartaa sidee bay u shaqayn kartaa hindoy su-aalaan ku weydiiyey alla kacabsi aan u hadlaynaa ninkaan digli mirifla waay 3 sano nin sheekh ilaahay yaqaan 3 sano kaamil oo dulmi ku xiraya walaalow aniga horta aniga siyaasad dawlad kuma jiro waa ifaan samaha aadan xaqiiqda aniga hadii la weydiiyo abo fiiri hadii maanta aniga la weydiiyo aniga qof inuu xirnaado ma rabo been ma ku sheegayno shakhsi bilow aadana hadduu dambi gala maxkamada la saaro way faan samaha laakiin adduunka Sweden adduunka hindaay walaashay ma haysaa wadan qof dambi iyo dambi la'aanba inta la soo xidho 3 sano kaamil qol isaga jira bilaa maxkamad bilaa su'aal ma jira gaal islaam ma jiro qofka ugu badan sanad iyo bar way qaadanaysaa baaritaankiisa waayahay villa Soomaaliya nimanka jooga waxaasay noola hortaagan yihiin waa dawlad waa cadaalad waa wadaniyad baa la leeyahay qof dhan ayaa 3 sano iska xiran war xitaa qofka dulmi waa lagu xiri karaa laakiin adi maxkamad soo taag والله إن شاء الله هرتا وحكستو هرتا أبو كل شيء مكتوب هرتا أولا وحا إلهي قرن مدعو هذا نو ويفان سما أنا ما كنت هاي وسحسين وصان ما كنت هاي يعني ويفان سمان بلو آذن عنها هاي واقل دنا سماها آذن وحا ويسان كلها لكن معني إلهي قري إلهي بقى قري أنا متو كان هاي مو يسيسناي جنادنا إلهي بقى يقرأ هدان جلايو مش قيني إلهي معني عقلي ونسيه حكمته ونسيه كوير الدلال وكوير ورشاق مختار روبو 6 سنة وحرانية الدولة نمنا والله ربع وضع معني عدالة كل سنة سي وش قين كرتا حدا فير ولا له حدا ويا هذا نهال سؤال كويدينا ما أمديش إن كاسو قلق 20 مليون أو صومالية ما واحد ده يسامرك مختار روبو الله بابي ما إلا ده محاجرة هل قف ما يوقويتي سك إلهي هل قف أو قلد لقدره الدنيا ضمن الله بقى يفوضوا يري ومضيه القرآن ما كان فيرينه هل قف يا لو عذابه يدول أردن مركا معنيه وحي هدي فيري وحي هدي الدول بكل سيين دولة نمدا سمو نحسن إلا وايو بكاس سيدان ويسيس عنيسا هذا الدول ميجان وأدي الدولة دان يسيح وجيستو يلا الظلم كل سنة محي سمين دون تبري هذا يسيح وجيستو ظلم وحي وين أي أساس حلال عدالة أي كل اسمان بس هو يسكت يدنا ومضيه هربان كمر كان يسوي هل قف أيا هل دلي هل بني آدم حتى ما ضد حدا ضد حلال ودار عليه هذا قوم صالح هل نيف جيلة أيود دلي neef geelu dilay dadkii oo dhan qalbiyada loo wada qarxiyay waa loo halaagay marka macnaheedu hal qof miya 20 milyan loo yes hadii dulmiga ay isku raacaan dadka halka qofna uu saxan yahay fiiri Soomaalidu waxay tiraahdaa macnaheedu wadar iyo waaxid yaa badan yaa saxan mararka qaar waaxid ka saxnaan kara wadartana way qaldanaan kartaa waa hadii xaq loo hadlaayo waay macnaheedu hadda sida Mukhtaar Robow oo kale ولا الدلمية محكمة ماله شرعي دولة نمدنا ولا جبان شيء كي إسلام كنا ولا جبان شيء وحرية هي وضرتها ودنا معني بين بشيء يعني بكرة كنتها مركل 20 مليون 20 مليون وحفي عن دولة الدولة إنها يشوا أنت هلي لهاي دولة ظلم كل سنة الله 20 مليون بقى حين بمر أنت اللي هلي لها أوكي هرتا صومالي حلال إيشك ما أنت ماشي بجوجو أو حلال أنكو إريفا هذا نو مجرى ما أنت ذا أنتو جوجا قف صومالي حلال أو حلال قودته أو دا عدا أو إلهي كعب صنايم إيشي كتا ماشي بجوجا ما أنت ويريهن ويجران مجران إبر واي بكون لكن ويريهن وماك محيين محي كمان كران كواس ميشي كرتا حددا إسلينايو انتي هذا ودادني عاوي ما يهدلان ماشي اللي قرب الديق بحايا إني جوجيان وداد كإنو قيليو محا أمسي فتنة إلى أمسيين سوما سوغي لكن هذا أديك أما كاب الله بايا أديك أسهد وهدلي دولة دوا تاغيريسا
dowladdaada war meeshaasa ku qaldantiin dulmiga mukhtaar robow lagu hayo daaya adiga iyo inta kulamida inay dhahaan soomaan culimada intaan la gaarin okay aniga waxaan ku taageeray baa ilaan dulmi inuu taageero ma waa inaan dhahnaa war dulmigaa samaynaysaane waan idin taageersanaya joojiya sooma may warkayga faham aniga waxaan taageerayaa aniga waxaan taaganahay dowlad xun dowlad xun ay dhantan taaganahay aniga marka mukhtaar robow inuu xirnaado dulmi ku xirnaado dowladaan qabaa waay way fahamsamaa mukhtaar robow inuu dulmi ku xirnaado waa taageeraysaa aniga maya dowlad la-aan aan ku yiri dowlad xuna ay dhantaa ii xumaato dowladii xumayd waay midii 30 sano intana dhigtay waxay rabtaa xirto waxay rabtaa suubsan taagana deema sheegay maya laakiin dowladda xun waa midda intana dhigtayba waa in dowlad xun laga baxaa maxaa diiday dowlad fiican inaan aadno haddaan dad muslim maxaa dowlad fiican sheegayso ma waxa ii sheegaysaa Saciid Dani iyo Tamaalki Saciid Dani ku sheegay ma ani teemay Saciid Dani Maryaanka kaleeto iyo nimanka kaleeto ma ii sheegay waxba igama gelin kuwaas kale ani dulmigaanaan diidanahay waxaan ka hadlayaa dulmiga dowlad xunaa dowladda xun sawtii 30 sano hadda dowlad la'aan aan u nahay badaha ugu dhamaanay u baabaanay soo ma wanaagsana in annagoo muslin ah dowlad fiican soo ma samaysan karno oo dulmi aan ku dhisnay maxaa dowlad haddaan muslim nahay walaalkay aadan fiirabo waxa dhacay fiiri waxa ka dhacay Soomaaliya fiiri dib u raac way fahamsamaan dad islaameed oo masaakiina ayaa la laayaan ku iri dhiigoodii aaway hantidoodii la dhacay maya dad waa la dhacay dhiigooda waa la laayay laakiin qof noola hadda inta ku xiran oo ummadan hogaamiyooda ah maxkamad male hadal male dadkiisina codadaa laga raba haddana kaaga sii dara marka waxaan ka hadlaynaa taas waayo aniga dadaa la dilay kama hadlaayo waxaan ka hadlayaa foxku waxaan saarayaa war mukhtaar robow 3 sano uu xiran yahay waa lagu qaldamay dowladda dadka taageerayo taageeradiini hadda dulmi haddaad taageeraysaan dowladdiini mukhtaar robow haysataa dulmi ku haysataa hadda dulmi haddaad taageertaan idinkuna dembiga waa leediin aakhiro iyo adduunyo ma dhihi kartaa dadka dowladda taageerayo mukhtaar robow waa in la soo daayaa dowladdeennay haddii kale ma ku taageeri karna annaga sidaan stop sidaan dulmi waayo ilaan adduunka hadda waddankaanaan jooga boqolka sharciga dalka hadda aan joogo haddii dowladda ay qalad gasho ama qodob ay soo saarto oo ummadda uu khatar ku yahay yaa joojin kara mataqaanaa baarlamanka intaan la gaarin shacabka waxay awood u leeyihiin 100,000 oo shacab ah haddii warqad ay saxiixaan hal warqad dhab way qaban karaan qodobkaasi dhab ay siinaayeen bareegay ku qabanayeen doodaa la gelinaa markaasaa loo codaynaa war gaaladayaa sidaa u dhaqmaysa marka adinka dulmi baa diidantii Soomaali dowlad wanaag baa rabtaa maya dowlad wanaag baa rabtaa Soomaaliya haddaa tihiin why not adinkaasi taageersan dowladda ama nabadda nolol sheeganaya war dulmiga waan ku burburaynaa ee farmaajo dowladda jooji sheekh mukhtaar robow dulmiga ku xiraya afkiis meel saar maxaa u dhiilaayay okay su'aalan ku weydiinaa mukhtaar robow maadaama weli hadda aan ka hadlayno waxaan ku weydiinayaa mukhtaar robow Soomaali badan ayaa qabto inuu dad laayay okay marka uu dadka leynayay ma yiri qabta Soomaali badan qabta la yiri uma hadlayno sheekh mukhtaar robow cali oo masuul hadduu dambiile yahay markuu dowladda heshiis la galay maxaa baasaboor diblomaasi loo siiyey maxaa markaas maxkamad loo taagi waayo waay ma arkaysa macnihii maxkamadda loo soo taagi waayo hadduuba dembi leeyahay waay 3 sano maxkamad loo taagi waayo dastuurku wuxuu qabaa 48 saac in maxkamad la soo taago marka hindaay adigu nafsadaada dulmi baad macnihii aad samaynaysaa hadda hadalkaaga nin 3 sano dulmi ku xiran kii wax dulmiyey baa taageeraysaa sidaasna cadaalad maahan I think so may maahan macnihii adiga la yiri inuu dad laayay baa in leedahay waya qofka hadduu dambiile yahay maxkamadda waa la soo taagaa durba war ninkan sanad iyo baruuba joogay habar khadiije intuusan baydhaba aadine oo laga soo qabanin baasaboor nin dambiile ah sidee baa baasaboor diblomaasi ku haysan kara adeeda sharciga waa taqaanaa Sweden aa joogta qof dambiile ah baasaboor diblomaasi ma haysan karaa ma jiro see marka hindaay maxaa ku hadlay marka qof weynaad adiga aniga حتى كأحد ماشان فرماج صاحبتي حدود وين بيكون سمين مختار روبو تاسنا الدولة دم نوع عاصي إنه يصير شقي سنة
sunbay ku tahay ummadda Soomaaliyeed wallahi shacabkay dhibaysa hadiiba dawlad aan dhisanayno cadaalad aan ku dhisano dawladda loo sinaado dawladdu ma ahan in ma arkaysa macnihi Cabdirashiid Janan oo dambiila in reexanimo lagu daayo dawladda ma aha sidaas Sheekh Muxtaar Robow oo dambi lahayna macnihi in la iska haysto digil iyo miriflinimo daraadeed yuusan digil iyo mirifl wax noqonin taasi mid nooc cuntamaysa maan anaga وعرنا دولة أدينا إنه يكون احترامته أنينا احترامته شعب الصوماليات ما يمحى إن لو سمية نو دولة إن مريحان كلية أي رصاصة جرتان أي هبكة جرتان صفيرة الله مجعاده مالية أي قاتان أي نولادان أي وحبابيان أي وحكوتنتان أي معني يجو أي هجاميان كلية مان دولة حوي سناني عدالة هلا احترامه أو حوض قبصنا ضل كنا إلى شنو دولة نمضي وسيلة سيدين تاني ما قصفير أيا أدونك جوت دعالة دون مريحان هاي نادرو وكوسو باري كرادو وادي تقانا بقول جرا أنت كشيء ليس كاسدان عاو آخرين ماغو معني مريحان وعاو كمدي هاي دارود معني اللف كمدي واي وحان دقل يمرفلا عن قادن كل جي ساقاتي ناو هذا أنقول الله وحان بر عن قادن كل جي ساقاتي وحان هويتنا عن قادن كل جي ساقاتي أما الدولة دي ماذا ساسميها إلا دكسيجا ولا ودلية دولة لماذا مختار روبو في الحراء عبدالرشيد جنان اللي سيدا إياه مختار ونقول لهاين إلا إسكاي يستمع الدولة لماذا نعم مركا هنداي وحن كان لين واكاس ما نرى إنا كو عبريو رنتي أدبان كو احتراما لكن أنك لقادنا من دولة هشيس لقلي أو إمادي شباب ولد دريراي ويلكي سكواي دولة عاوناي ولو هذا جد زكريا مريحان دولة هشيس لما قلي ما أنت في الصومالي يسيو كجرا سو شباب وها وعن هذا معنيه شباب كسب بحي أردن أي حلال كهاي هل قف الدولة هشيس لقلي مجرى ومضى هري مادي مختار بيجو وشبي قرعي صوبي كدعي بيجي سو شبي ومضى الصومالية وعير وإن مارت لقى أصلا شباب ذلك لقى سارة ننويل كيسكو أيوة كيا معنيه البرصناية كوي كلنا معنيه حلال لودي عقلي ميا متاس حدا كار محل وقلي مختار روبو ليسك أو بلاك ليست أو أنت صوماليين اللي يروى اللي قد نك ساقط محل لوجا ساري هذا كورنا ما إيشك محل لوجا ساري ولا قليه على صومان محل لوجا صومالي محل لوجا ساري دولة أكثر سما دولة ما يلا دولة كسرتي ما الدولة مريكا كايدا يا ساري يعني 5 مليون مريكنا ساري اوكي محل لو ساري هدا قاday maxaa looga qaaday hadii laga qaadayso ma cadeynayso in Muxtaar Robow aanu dambiila ahayn uu ka baxayso ma cadeynayso maxaa loo saarayso mana maxaa looga qaaday aan kula yaana hay ta waxa way kulli horta wixii jiraba ilaaha way faan sabab wixii jir ilaahay uu ogyahay laakiin annagana ilaahay ruux buu nasiyo wax buu noogeysiiyay ما أنك بلو آدنا أنا وح بلو آدنا نهاي فيسا باسبور دبلوماسيا لسيه ديارة حضر لوجا سوقاضي دولة دو هشيس لقلبه وجدني دولة دو له شيء إنه أرجع سنة لا تقال ما يو لا قلبينا إلا هو بينايو بلنتنا ولا جنب حي ورئيسي سنة فيها ولا أساس وشيء دت كيسا ويرتين دت كيسا مر كي ويرتين لا أركينه مدحوينا نقنربه إثيوبيا لو أديك سدي وريا قف صوماليا معني إثيوبيا لو أديك سدو وصاف دو بصحمية حتى نكان صحمية قف صوماليا ومواطن صومالية ولا لو إن كارا إثيوبيا لو أديك سدو هدنا وطنيات لا شك صحمية تاسي فرماجو صاحبيسي كاري إثيوبيا وأديك سدين بيضاو مختار روبو مثل إثيوبيان كاين هاد وطنيات ميا تاسي حمر كوي كلها حمر ما قال كلها هذا أو صوماليا أو كارا إثيوبيان كله أديك وحي كلها وطني ما هني إسقنا وطني ما شايفين كريه مركا أنا كم كلها ما هن ضد وطنيان ما هن قف وطني قف كاري بدنا سنتاي هنداي قف كلا يسوي عاي مخرب كانوا اللي جاري ما أنا كنت دمين كرو قف كان أنا رباجاني سيدان سيم إيه فصحيح أيوة عافا كوف صحبه هاي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير ولا البا قد كجرا لبا دقيقة السلام عليكم مخرب كان اللي جوجا سودو dood way dhaaftay xogaa baan ka soo gaaray waxaan arkay macal Mukhtaar iyo arrimaha dawladda marka aniga waxay la tahay Mukhtaar
waan maqlay anigu taariikhda horta si fiican uma hayo laakiin waan maqlay inuu al-shabaab muddo ka maqnaa isqabsadeen oo xilligii xasan uu isagu isdifaacayay oo ma garanaysa aan la isku fiicnayn dawladanu markay timidna wuu la heshiiyey waan maqlay laakiin waxaan u malaynayaa sababta mukhtaar dawladdu hadda house arrestiga loo geeyay waxay ahayd mukhtaar xilli uu doorasho isu soo sharaxo kuma habboonayn ma garanaysaa oo faylka qora waa marka waxaa diidanaa waxyaabihii hore ee la xidhiidhay al-shabaab iyo wax noocaasa iyo international relations iyo waddanka la kule oo maraykanku ka mid yahay marka arrinta al-shabaab dawladda hadda waxaan u arkaa inay u samaysay in macnaha lagu sii daayo magaaladana in al-shabaabkii baa dilaya hadday helaan isagana hadda inuu meel safe joogo waa sax waxaana aaminsanahay xilliga ku habboon siyaasad ahaan ee waddanku xasiloon yahay ee doorasho one man one vote la gaadho ee uu iska sharaxi karo baydhabo waa la sii daynaya aniga si ii muuqato ma garan way su-aal haddaan ku weydiiyo axmed madoobe soo madaxweyne kama noqon isagoon meelna ka toobad keenin oo shabaab ka tirsanaa xisbu islaam ka tirsanaa mukhtaar waaba nin dawladda heshiis la galay midda kale dawladdu soo iyadu baabuur uma rarin buruufiyo soo baydhabo ma geynin sow basaboor diblomaasiya ma siinin sow shabaab inuu la dagaalamayo heshiis lama gelin oo ugama bixin iyagu markii dadkiisu ay u yeerteen oo macnihii ay u arkeen kay wateen inuusan soo bixi karin hadduu mukhtaar meesha joogo baydhabo uu mukhtaar madaxweyne noqonayo 77 cod hadhowdii ma heli doontaan daraaddeed soo looma xirin maxay tahay argixisada ka hadlaysa horta akhi waa runta oo horta siyaasaddu waa kaam ma garatay hadda kaamka dawladda ay ku wada jirto ee ay lafdhabarta u ah waa galmudug hirshabeelle iyo meesha la yidhaahda baydhabo saddexdaas baa ugu muhiimsan dawladda jiritaanka soomaaliya maanta haddaanan xaqiiqada ka hadalla moogta 4 daqiiqaan ku siinayaa waay marka survivalka dawladda may 4 daqiiqaan ku siinayaa ummadda warkaaga ka dhargi waa kaa maqanahay kuma jiibinayo hadal waya 4 minutes waya marka waxay u muuqataa dawladda survivalkeedu jiritaankeedu wuxuu ku jiraa xaqiiqdii saddexdaas maamul buu ku jiraa marka waxay u baahan tahay dawladdu inay waqti u hesho waqti ay xasan aweys ku soo dayso waqti ay ku soo dayso ninka la yiraahdo mukhtaar roobow oo marka ay meesha ka baxdo al-shabaab dhaqdhaqaaqan la neutralize garay ama laga saaro suuqa waddanka boqolkiiba boqol dawladdu gacanta ku hayso ciidamada daraawiishta la geeyo xuduudaha ninkaan waxaan qabaa markaas wuu tartami karaa laakiin xilli hadda ku habboon ma aha mukhtaar haddii la soo daayo oo macnaha aynu u diro inuu baydhaba ka campaign gareeyo xasan aweysna waa soo daynaynaa marka waa inaynu isna dhuusama reebgeyno marka nightmarkii al-shabaab iyo wuxuun baa inagu soo noqonaya kale aynu hadda kasii baxayno walaalkay wuxuu kaloo ka hadlay ninka la yidhahda axmed madoobe TPLF baa meesha geysatay waa la ogaa dagaalkii ka dhacay xasanna wuu ka adkaan kari waayay barqaa la jiiday dawladdan markii uu damcay inuu dib isu soo sharaxo waa tii ka diiday ee lagu yidhi axmed osaad wuxuu wadaa waa khalad axmed maanta waxa weeye ixtilaal buu ku joogaa kismaayo waa ognahay taageerada ugu badan wuxuu ka helaa Kenya wuxuu ka helaa Norway wuxuu ka heli jiray TPLF marka jiritaanka axmed xaaladda uu ku joogo way ka duwan tahay xaaladda maanta baydhabo ka jirta walaalkay Maxamed Aadan wuxuu magacaabay ninkii la oran jiray Janan dagaal buu dawladda ku qaaday muddo negotiation iyo wada hadal la ka bacday dawladdu waxay ku guuleysatay inay ka soo fujiso dadkii madax furashada u haystay oo Kenyaatu ka mid ahaayeen nabad sugidda Kenya saas ayuu xamar ku yimid waxaa ugu maqaala markii dambena in loo diiday inuu iska sharaxo gedo oo macnaha MB buu rabay saan maqlay marka isku soo duub waxaan aaminsanahay qofku in Soomaaliga uu cadaalad helo oo ma garanaysaa codkiisana uu helo inuu hadlo siyaasad ahaan uu madax banaanaado laakiin xaaladda maanta lagu jiro waa yar adag tahay marka aynu iska dulqaadano insha Allah hadii la haydmo
waxaan rajaynayaa in mukhtaarna uu xornimadiisa helo iyo siyaasadiisa uu kusoo noqdo waddankuna uu one man one vote macnaha hal qof iyo hal cod aado haddii laha idmo ma soo noqotay wadaadka waa iga tegay meesha marka waxaan filayaa arrintaas aniga saasay ila tahay 4 daqiiqo waa badatay wadaadkiina ma soo noqon marka haddaan soo noqon insha Allah aad uma santahay qiimaha iyo qaaya leh waqtigaaga ma arkaysa aad noo siisay كل قف كلام كان السين دونا رأي جانا وافس حي وسلامة إن شاء الله. عالمد مقدرة. مقدرة كتا. أنت قبل الله كتاجن دجالة بلم بلية كتاجن. وحنم علينا يا إن ينوفي عنا الله حيد إن إلهي النبض هالك كدجو. أذكاس وضن على الله إن قدمن معنا بيدمن الود من هالك أنا الود من. inaynu dib ugu noqono 1991 kii wixii inagu dhacay 30 sano ka bacdi waa arrin ayaan dara inagu ah marka ummadda loo duceeyo aadano insha Allah aad baad u maasantahay walaalka isaga ra'yigiisii waan dhageysanay walaal kala dhowr jeer soo wacay kulay anu dadka waan u sii daayaa ra'yiga walaalka soo wacay baan chance siinaya hadii Ilaahay uu ka raali noqdo qof baa wuxuu iga soo wacaya xagga iyo Yurub isagana chance aan siinayo ugu dambeyn laakiin xaqiiqada waxa weeye safarka maxamed cabdullaahi farmaajo mareexaan sidaas uu ku qotomaa sidoo kale ma arkayse baraaw ciidamada la keenay waa raggii cuslaa ee arareed ay u badan yihiin qaybta labaad ee doorashada ay doonayaan in ay fuliyaan ee baraawe sidaan hore kugu sheegnay afgooy iyo baraawe waxaan dhihi lahaa baraawe iyo beledweyne baraawe iyo beledweyne wajiga labaad in laga dhigay doonayaan laakiin ciyaartu ma sahlana nana iskerso xaqiiqo maahan ee macnaheedu ciyaar maahan Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur dad buu ka dhashay sida xaqiiqada ah dadka hadda kuraasta loo xiraayana waa digil iyo mirifle haddee 2018 wixii baydhabo ka dhacaayay dadka hadda kuraasta loo xiray way ogaayeen wayna joogeen dal iyo dibad meeshay doonaan ha ka joogaan adduunyada haddii Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur farmaajo af iyo ur u bixin waayay waxaan u malaynayaa Xasan Sheekh waxba kama duwanaan doono madaxweyne Xasan Sheekh waxaa laga kari waayay 6 gobol walaalo wax kala goynin hawiye ha yimaado daarood ha yimaado dir ha timaado macnii beeshanaad ha timaado war Soomaali ururkeedaan nahay waa meeshii ugu qeyraad badnayd Soomaali waa la isku raadin jiray 30 sano 20 sano burburka warniyo waxa lagu yiri Soomaalida maadaama la isku raadinayo 6 gobol haday israacdo Somaliland ay soo raacday intaan waaba hawsha wayba ku fududahay maxaa u kala goynaysaa wuu diiday laakiin natiijadu waxay noqotay waan ogeyn farmaajo loogu shubay walaal baa qadka ku jira ugu dambeyn salaamu alaykum maxamed السلام عليكم شيخ آدم. وعليكم السلام maxaa ku dari lahay 2 daqiiqo waxaan ku dari lahaa baryahan ushan aad reer nolol iyo nolol hadaan leeyahay nala dhacaysan baad naga yaraysid maxaa isbedelay maxaa dhacay Mukhtaar Roobo Cali anu dhacdhacada oo 3 sano kadib doorasho lagu kor qabsado sax miyaa sidaas mise dulmi waay maya wixii dulmiya Soomaaliyo dhan buu horta dulmi ka siman yahay waxaan ku weydiiyay adiga muwaadin Soomaaliyeed baa tahay sharaf leh Sheekh Mukhtaar Roobo 3 sano oo kaamil ah ayuu dulmi ku xiran yahay sax macni in isagoo dulmi ku xiran doorasho lagu kor qabsado sax ma tahay isaga iyo muwaadiniinta kale Soomaaliyeed ee dulumka ku xiran ma mudna arrintaas وانا كل وافقسناي لكن تمشي تعالى وحوي لكن سو حق ما لهن إن أنا ما دام إن كان ظلم وكريه هاي إلا سود دايمك وواجب كقوات إن قفك ظلمناها أوردن إن مارت حقوق دي سلباديو هدي وكاسو تشيدو كسي كدرن بابو كودي بيا وحويان بقفك هاي أو ريدي aadan midnimadu ay ka maqan tahay lama diidana laakiin ma kula tahay ka yimaada ama nimankii dadna dhul bay isku hayaan dadna xukun bay isku hayaan waan ka dhareegsanay arrinta Soomaaliya
ma kula tahay nooca iman doonaa inay asxaan u suubi doonaan? anigu rajo waxaaba ka qabaaba doorashadu hadday nolol iyo nabadi ku guulaysatay inuu ninkaasi xorriyadiisa helayaan aaminsanahay anigu. fiiri horta waxaa imaan doona ilaahay baa og, saldanadana rabbulcaalamiina dhiiba. si fiican. adduunyadana dib u daran ayaa lahaa. rasuulku wuxuu yidhi qarnigaygaa ugu macnihi qayr badnaa, wixii ka dambeeya o dhan waa sabaan aakhir waayo, sharkaa badan. si wanaagsan. si fiican. laakiin haddii hadda xoogaan kugu haystaa ay noqotay, qabyaalad ay noqotay, hadhowdii haddana marka qofka sidaasa haddana hadduu soo noqdo muxuu samayn doonaa? annaga meeshaasaan ka xisaabtamaynaa. marka waxaa la qaatay haddii la ii xasday anna inaan xasdade maxaa diidaaya? This is our main point. macnihii sidii xasan sheekh oo kale cododka inaan dhaafinaan ku dadaalaynaa. haddii farmaajo uu ur iyo af u bixin waayo, shalay xasan sheekh waa looga hiiliyey, cododka waxaa la siiyey farmaajaa loogu shubay. digli iyo mirifle cododkooda farmaajay siiyeen. marka tookadan anaga waxaan ku qasbannahay inaan ku dadaalno inta karaankeenna ah. mukhtaar robow haddii af iyo ur loo bixin waaye, farmaajo waa loo tegi daraa. waxaa lagu yidhi niyow ninkaan maa soo daysid, doorashada aan dhammaanin ma soo daynaayo yidhi. bal fiiri, okay, doorashada haddii aan soo noqon waayo waa soo daynaa. haddaa soo noqotid ka warnaa la yidhi. ma ogiyo yidhi, ma ogi macneedu waa maxay? sow idab darro maa? okay, aadanoo annaa kugu darsado. ku darso daqiiqad soo koob, waa bixi rabaa. ma u malaynaysaa inuu anigu horta nin reer waqooyiyaan ahay, runtii reer soomaalina waan ahay, oo nin shaksi midnimada aaminsan baan ahay. haba se ahaatee ma u malaynaysaa inuu raxaweyn u xidhan yahay mukhtaar robow? qorshaha ma kugu jirtaa taas? kaalinta labaad raxaweyn u xidhan yahay waa ogahay, laakiin kow wuxuu u xidhan yahay farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii hore ayaa soo xirtay. waxaa eeg sawirka ciidamada farmaajo ka amar qaata ayaa guri ku haysta. afduub waa siyaasadda aad ugu dhex jiraatay Soomaaliya. runtiina waxa fiican nabarku meesha uu yahay in la abaaro. ma kula tahay raxaweyn oo aan haysan ayay farmaajo doorashadiisu ay digiliyo midifle ku xidhantay inuu haysanayo sheekh mukhtaar robow? caqliga markaad saliimka adubu baadho eed seexateed soo kacdo, adiga dareenkaagu ma ku siinayaa taa? hadda siyaasadda waad ku jirtaa ogow aadanow. aniga warkaygu uu dhan yahay. waxaan ku dhahay mukhtaar robow cali abu mansuur dadkiisi marka laga yimaado hawiye iyo daaro dadkiisu u xirayaan ku dhahay. waaba aniga warkaygu uu cad yahay. weliba waa la soo fariisan jiray meesha lacagta lagu kala qaybsaday, cidda kulli maamulkii meesha joogay, shariif xasan kulli waa sheegay. laakiin marka laga yimaado kuwaasi waxaa weeye maanta waxay hayaan male. laakiin mukhtaar robow cidda maanta gacanta ku haysa waa farmaajo. mise waa isku diidanna? isagaa taliyihii guud ee ciidamada ah, isagaa guri ku afduubtay oo ku haysta. sharcigana ma qabo qof in adi hadda yurubaa joogtaa, dal 3 sano kaamil ah qof iska haysanaya bilaa maxkamada. adiga ii sheeg xataa gaalada. dee waxaan soomaya waxaan kama jiro cadaaladda islaamka ma jiro. macnihi garta way gashaa inay ku gasho dal sharciya ka jirta. adigaas hadda oo qaxootinimo ama shaqo ama ajnabi ku yimaaday yurub, inta lagu qabta layskama kaa xiraayo. haddii lagu xirana oo lagaa shakiyo 48 saacadood gudahooda maxkamada lagu soo saaraya. annaga sharciga caadiga iyo caalamiga dowladaan sheeganay. war shiiqan muxuu ku xiran yahay 3 sano? de waa haddaba eeg waa in la helaa odayaal ka madax bannaan. meeshan meeshan dowlada ka jirto ma odayaal ha ila aadin. odayaal haddaa ila aadid waxay noqonaysaa dowlad ma jirto waay. ani dowladda la ii sheegtay, wadaniyada la ii sheegtay. dowladda iyo wadaniyada la ii sheegayo baan rabaa mukhtaar robow in layga tuso. aadan markan indhaha inaan iska tuurayn. Soomaaliya waxaa ka jiro waad ogtahay, fiilada ka soo baxabaa ragla hor fadhiyaan meesha horteeda. marka waxa ka jira waa iska ogtahay miyaan ku noolnahay? dee taasi dowladnimo ma ku tilmaami karno. waxaan rabnaa waa ima dowladnimo ama ima sharcigii qaabaadka inaan macnihi aadno. sharciga qaabaadka haddaan aadno qabiil buu ku dhisan yahay. farmaajona mareexaan uu ka dhashay,
ما أركيس دور يتمن حلبان إليهين دور يتمن كيس حلبان مدحوينها كديجان مرك this is it هذا وحي كبيرة كانت هذا دولة ما ديت هاي سدح سنة مقدوب وليه بكاس محكمة لما سوتاجن شرعي لما كينين هاي waxaynu ku noolahay aadan oo siday xeerana ku noqotay ilkana ku nabad galaan Allah iyo la qabaa ma la soo deyn karo laakiin maanta marka jarmalkay soo garab dhigto iyo wadanada yuudeynu ku noolahay haya adiga cadaaladda abaar macnaheedu hadhiine farmaajo waa nin qaran waa wadani ha ii sheegin markaas ma sheegi kartid hadii ba aad macnaheedu sharci qaabaad ila aadaysi anu maya anu ila aada wa ima dawladda maya anu waxaan ku leeyahay waxbay dhaamaan aadan waxbay dhaamaan waxba habeenkii dayaxadaad weydo hadda dayaxa weydo xidigaha lagu lugeeyaa Soomaa waxaan arkay maya dulmi marnaba lama taageerayo ilaahay baa ku diiday ilaahay baa noo diiday adiga iyo anigaba dulmi inaan taageerno maahan haddii farmaajo iyo dawladdiisi dulmi ay samaynayso waa inaan dhahnaa ama jeclow ama necbow stop waa inaan dhahnaa sidaan waa dulmi annaga hadda fiiri waajibka diiniya nasaara waxaa weeye inaan dhahno farmaajo adiga iyo dawladdaada mukhtaar robo waa dulmiseen adinkoo nabad iyo nolol ah waa inaad dhahdaan kan ma kugu taageeri karno waa inaad ninkaa bannaanka iska keentaa this is it وإما وهدي أد مسلم تاي أو معني دولة نمو وناجيد يا عدالة أرتي وإما هدي معني آذن ربينه وحاجة كلامي مكو خصباي لكن عدالة ده سيد أي شيء يسو ظلمي مرنبا جد لو ما سمين كرو ظلمي وظلمي عدان ملك مدو ملك عيال ملك نوين ملك الرول ملك نين ملك ناق ملك ظلمي وظلمي دين يمدني كرنا سومالي واحد دول بيقول ما جرته ولكن وحويان جد ويا قيل أبي يشيد ده ورني كان دلمي يكون حرياي مختار ربو وين أوشينا ويا أذيبو كم السوقات ما هيسا واحد جرنتي ما أنت نين مذا مشرح كولا قرقرتمية ما هيسا أنت عدك إسي أنا كوسو ديني بالله نكاقاضي ما هيسا أنا قا هذه ما بنرحوين ما تجري بدي تبايا أنت سياسة دود أي كم رح بناطاي فرماشو هي سياسة هوية هذا وراني هوية من هوية حق إيدك هوية ما قانو درنا ما قانو دارودنا ما قانو أنا جو حنا قاننا تيجي يا صومالي مركا أي ما هي سابق صومالي ماذا مركا وجوه الرئيس هو إن حقق عايشة أنا جنا حقيقة أنا هلا مركا سكدب صومالي نمو إيه نجس صومالي إلى دولة ماذا شلون عدالة يسنان يكلا ضمين لون نورادو مركا إن شاء الله وجبينا يا كلمة قدام بس هل دقيقة كسي وهل تقدر تسيسي أنو كل واحد عليه واحد قولن لها حداد سؤال هو قدر سريع تدار أنو كسينيا وحوي واي ودقائق ربع إن شاء الله waxaan kusoo koobaya horta mucaaridnimo iyo horta imika awal dhexdhexaad baa kugu ogaa anigu aadano maya hadii aan diiday ma anaa dhexdhexaad ka baxay oo mukhtaar robo dulmiya lagu haystaa hala daayo ma dhexdhexaad ka baxay oo maanta xabsi ku jirtid adiga now you the last 1 week adiga ila hadlay hadii dulmi lagu haysto oo aan ku dhaho وأن كودو وريو نكان ظلمي على الوجه يستاهل دايو ده هذا ما ده مكبحي إلا الرسول كوحو يري ما يا أنا متكلم كمان على يبا ما يتم كمان على تروح وحق مواد كان هاي هذا ده هذا ما ده مكبحي هلا دايو ما عترون I'm not talking about this I'm not talking about this تن كمان على يانو last week دي قدام بيجيبه وحوي الرصاص هذا وين نقص عطاه سحبكي دحدحات كاكسو علي مختار حق بولي ومواطن حق له إن لو قرقرتمو بربنكي كوسو ديني دورشدا سيسو قاعد كامور استاغ بس انا مختار انو دودينا بس واحد كلام مجرو مختار ظلمي وكل هي سيده دولة حمان هلا دايو هذا ما كما بخين هدان له سلاس ما حق باودو لهده waa ku gorgortami kartaa هلا دايو نكان ودادك ولا دلميه 3 سنه دلميه هي وانا ku salaamaya baasha
waan ku salaamayaa sideedii ku soo celi mukhtaar roobowna aad baan uga xumahay dhibaatada iyo xaqdarrada iyo dulmigu ku xidhan yahay aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalkay axmed olol waxaan ku siiyey 2 daqiiqo orodaan ku jiraa soo dhowow ninka ay leeyihiin farmaajo waxaa dul taagan malakulmood ayuu dul taagan malakulmoodka siyaasadda wuu nafbaxaya sakaraatulmoodka siyaasadda ayuu ku jiraa dadkana waxay leeyihiin sidaan hadalkooda aan ka dhimanay bariyahan waana dul saaran tahay annaga waxaanu diidanahay sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur dulmiga farmaajo ku soo afduubtay una haysto muddo 3 sano ah insha Allah waxaan ku dadaalaynaa annaga sidii xildhibaanadeena sida annaga xasan sheekh maxamuud aan meeshaan uga ceersanay ayaan 100% awood saari doonaa saan farmaajo meesha ugu saarno si uusan mar labaad dalka ugu soo laaban dalkani dib u dhac balaaran ayuu u geystay farmaajo waxaad la socotaa dhammaan goboladii dalka inuu ciidanka Ethiopia u adeegsaday kaarihii Ethiopia kadibna uu dhahay waad mahadsantihiin dawladda Ethiopia u mahad celiyay marka waxaan leenahay sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur nin geesi ah waa nin halyaay ah waa nin aan cabsanin farmaajana wuu ka cabsaday sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur ama laakiin hadduu isdhahayay inaad 77 cod markaad gacanta ku digtid kadib sheekh mukhtaar roobo iska soo daa 77 cod farmaajo heli maayo mana soo laabanayo isna only farmaajo maahan maalcaadan waxaan kaloo sidoo kale aan ku dadaalaynaa inaan codadkeena aan hareer marsino ninka ay leeyihiin kheyre waa ninkii ku lugta lahaa asagana soo afduubida sheekh mukhtaar roobo cali abu mansuur marka waxaanu leenahay taageerayaasha farmaajo ama nabar iyo naxdin waxaa idin dul taagan malakulmoodka siyaasadda ayaa idin dul taagan nafbax ayaa tihiin naflacaare ayaa tihiin waana la idinka guulaysanayaa dalkana waa la idinka qabanaya insha Allah billahi alkariim Soomaalinimada sidii hore dawladdan 30 sano tartiibtii loo soo dhisay ayaa dib loo soo celinayaa dalkan orodkan farmaajo uu ku jiro inuu burburmoogi dadaalkii 30 sano Soomaalida ay ku soo jirtay sanad walba talaabo la qaadi jiray 5 sano farmaajo uu joogay dib u dhac balaaran ayuu u geystay dalka waxa doorashada wuxuu ku galay dalkan inuu geynayo one man and one vote inuu qof iyo cod uu geynayo wuu ku fashilmay marka macala aadano waxaan rajaynayaa insha Allah in oo nafla caarida nafbaxa hadda ay ku socdaan siyaasadda isbedeshay abiy ahmed lugihiisa ayuu ku oynayaa cawada waatan aad sheegaysid aan leedahay waana xaqiiq oo abiy ahmed waa nin baahan gaajo ayaa hayso waxa la sanduuqan qaado waxaan ka bax marka farmaajo waxaan leenahay lugaha Etoobiyaanka axmaarada iyo oromada ku soo dul oy ayaan leenahay dalka marka ku soo laabatin waa laga qabanaya filla Soomaaliya aad uma santaa macalada aad u mahadsan yahay walaalayaal ma arkaysa kaasi waxa waa Axmed Olol oo u dhashay Mayland kana mid ah malaayiinta miskaxdooda xorowday ee Mayland 77 cod dadka loo doortayo wallahi waxaan hubaa digil iyo mirifle inaad tihiin taariikhna way qormi doontaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo dhagaxa waxaa la yidhi meel dhow buu dhacaa dhawaaqna meel dheer waxaa maanta ay ku joogtaan sheekh mukhtaar roobow nin u dhigma oo kale shati guduud iyo rag ayaa duurka u galay oo salbalaar ula dagaalamay iyadoo sinaan la diidan yahay keenay ustaad cusmaan baa caloosha loo tartariiqay waxaanu sheegi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo ya maxamed cabdillaahi farmaajo mukhtaar roobow cali abu mansuur haddii uu diiday inuu soo daayo adinkaa ka jawaabaya aniga ma ka jawaabayo waxaan anigu ka jawaabayo maaha you will answer dadnimadiina lagu tijaabinaa tan dadnimada digil iyo mirifle ama Mayland tijaabadii ugu sarreysay ayay ku jirtaa aragane weeye waa hee aragane tariga muhiima hoggaan lamaadiya milatariga muhiima hoggaan lamaadiya kasokuu ilaahay muruga ii awoodii ummata magan sidaasay kamiiranaaytiya milatariga muhiima hoggaan lamaadiya
la tariga muhiima ugan lama hadiya suku ilahay murugi awoodi ummat magan sidaasay kamiganaytiya gasiyal mamano maragi haming eman kadal sho malisinga mishar lamba moral yabane imansho sugungalena military imanjay sugungalena gasiyal mamano maragi hami eman kadal sho malisinga mishar lamba moral yabane imansho sugungalena military imanjay sugungalena nagade kamidobe ayana kamije mutaliminti military kamin nagade kamidobe kamamulo armaday hormarka deersiyo masuul daacadee nagado ay go'aansane aloolkii una barani inii meel kale inteeye militariga oo jiro dadkay kamaamulo armaday hormarka deersiyo masuul daacadee nagado kay alankay mapaylayayo amarkii madidayna madiidayo dalkay 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 alankay mapaylayayo amarkii madidayna madiidayo